Saaxiibtinimadu waa xiriir aadanaha dhex mara oo laba qof in ka badan ay sameeyaan. Waxa ay kaga duwan yihiin xiriirada kale waa mid ku dhisan tiraan laba dhinac ah oo kalgacal iyo is-qiimeyn ku salaysan yahay. Qofka saaxiibka kula ah waxa uu dadka kale kaga duwan yahay waxa uu garab ku yahay mar kasta oo aad u baahato. Saaxiibka rumaad astaamaha uu leeyahay dunidu way isku khilaafsan tahay ilaa dadka qaar ay yiraahdaan waxyaabaha aan la heli karin ee mustaxiilka ah ayuu ku jiraa. Maantana waxaan idiin soo gudbin doonaa xikmado iyo oraahyo laga yiri saaxiibka wanaagsan. Saaxiibtinimadu ma dhacdo sida cadceedda oo kale, ma dhalaasho sida barafka oo kale, ma dhinto haddii uu jacaylka dhinto mooyaane. Saaxiibtinimadu waa shimbir garba la'aan ah. Saaxiibtinimadu waa kalgacayl iyo is-aaminaad. Saaxiibtinimadu lama beego oo dan maaha, lacagna laguma qiimeeyo. Miraha keligii mar baa la gurtaa, laakiin saaxiibtinimadu ilbiriqsi kasta ayaa miraheeda la gurtaa. Saaxiibtinimadu waa ubaxa keliya ee aan qodxo lahayn. Saaxiibtinimadu waa wejiga kale ee kalgacaylku leeyahay, laakiin waa mid aan miridhin. Saaxiibtinimadu waa caqliga keliya ee laba jir ku wada yaal. Saaxiibtinimada dhabta ah ma dhammaato. Saaxiibka rumaadna mar kasta kaama danaysto. Saaxiibtinimadu waa sida dallada roobka oo kale, mar kasta oo roobka sii xoogaysto si aad ah ayaa loogu baahdaa. Saaxiibtinimadu udugeedu waa rajo, malabkeeduna waa daacadnimo, saxansaxadeeduna waa kalgacayl. Waxay ku baaba'daan geeri oo qura.